السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع إنه وحو قصية الرماه لمانها وحن موضوع عن أدورتي ما دام إسفهم واقع لمانه مسكصبت هواية دمي. أنت نسي كده قال الموضوع هذا الشانل فوق صوتها سبسكرايب سيدوك هذا موضوع سيجارة فوق سجري لايك صار أصحاب هذا النودك سيان أصوبة الرماه لحدنا موضوع جوركو وسنة ونعكسن وأنا تبعات ننسى إنه تركوا بطو وحو ربي سبحانه وتعالى ودحدقي لب يددي كستا rabitaan midkaasoo midba midka kale uusan ka maarmin waxa kale oo jira dareen jacayl oo u dhaxeeya lamaanaha muuqaalku ma quseeyo arrinta balse muuqaalku wuxuu quseeyaa sidee ayay lamaanuhu ku sii nagaan karaan ama ay u sii wada joogi karaan muddo dheer qodobka koowaad muujinta dareen jacayl in lamaanuhu ay isku muujiyaan dareen jacayl waa waxyaalaha gurigooda uu ku sii noqon karo baaqi ama uu muddo ku sii dhisnaan karo inaad muujiso dareen jacayl ma ahan inaad dhahdo waan ku jeclahay balse waa inaad qofkan umuujisaa naxariis ka walwashaa danaysaa farxadiisa waa inaad ka waraysaa duruufihiisa gaarka markaasuu qofku dareemaya inaad u hayso naxariis iyo jacayl iyo kalkacal qodobka labaad daacadnimadu waa mid ka mid ah akhlaaqda wanaagsan waana mid ka mid ah aasaaska xiriirka lamaanaha waa inuu midba midka kale uu noqdaa daacad hadiise ay timaado midda cagsigeedu nolosha lamaanuhu waxay noqonaysaa mid ku dhisan khiyaano iyo been iyo inuu qofka kale uu mareego sharqool khiyaana qodobka saddexaad isisiinta hadiyadaha qodobkan waxa horey noo faray rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri tahaadu tahabu war wax isku hadiyeeya waa isjeclaanaysaan oo yaani dhexdeena waxa ku abuurmaya jacayl bal xasuuso qof uu keenay hadiyad iyo dareenka aad u qaaday ee jacayl sidaas lamid ah waxa la doonayaa lamaanuhu inay isku hadiyeeyaan haba yaraadee haddii ay dhalato midaas yaani wax la isku hadiyeeyo waxa dhalanaya ololka jacaylka lamaanaha isqaba qodobka afraad xiriirka hoose xiriirka qotada dheer ee u dhaxeeya lamaanaha wuxuu gacan ka geystaa sidii loo sii wada noolaan lahaa iyo isu dhawaansho dhexdooda wuxuu sidoo kale kordhiyaa jacaylka lamaanaha u dhaxeeya waa inuu qofka kale u si xeel dheer ula socdaa baahiyada jira xiriiriya dumaashiyadii saddex bal qiyaas qof inta marba ka wareysanaya hooyada sidee tahay walaalka xaalkiisu waa sidee aabba iga waran xitaa waxba yuusan tarin hadduu tarana kaba wanaagsan bal qiyaas dareenka jacayl ee qofkaas uu qofka kale u qaadayo qodobka shanaad ixtiraamku waa mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan haddii qofka kale uu ixtiraamo waxa kordhaya jacaylka u dhaxeeya lamaanaha qodobka lixaad kalsooni iyo shaki la'aan haddii qofka kale uu ku kalsoonaado waxa imaanaysa nolol farxad leh waxayse kalsoonidu timaadaa marka qof kasta uu qofka kale ka ilaaliyo wuxuu ka shakinayo qodobka toddobaad waqti oo la wada qaato inay lamaanuhu waqti wada qaataan qurux badan waa muhiim ay ku wada sheekaystaan cilmi baadhis la sameeyay ayaa lagu ogaaday in ninka maskaxdiisu ay sameeyay maalintii 12,000 ilaa 15,000 oo kalmadood inta u dhaxaysa si uu u isticmaalo maalintiisa gabadhana maskaxdeedu ay sameeyso 25,000 ilaa 30,000 oo kalmadood inta u dhaxaysa waana sababta loogu tiriyo in dumarku ay ragga ka sheeka badan yihiin lamaanuhu haddaynan iska niifin waxaa bilaamaysa in ninku u sheeka doonto ragga asxaabtiisa gabadhana u sheeka doonato asxaabteeda halkusi wuxuu ku jira in la wada qaato waqti oo ninku uu gabadha weydiiyo oo ku yiraahdo ii waran maxaa soo cusboonaaday maanta gabadhan inta in lamida in ninka la wadaagto qodobka sideedaad mahadcelinta waa inuu qofka kale uu mahadceliyo marka uu muujiyo garab waana in gabadha ay u mahadcelisaa ninkeeda maadaama uu ugu maqnaa waxay quudan lahaayeen maalintooda sidoo kale waa in ninku uu mahadceliyaa gabadha maadaama ay xanaanaynayso ubadkii sidoo kale waa in qofka kale uu mahadceliyaa mar alla markasto garab la isa siiyaba qodobka sagaalaad raaligelintu waa muhiim jiddan khaladku waa dhaca raaligelintuna qalbiga jabay ayay u tahay dawo markastoo lamaanuhu ay wax kala tirsadaan waa inay israaligeliyaan hadduu noqdo ama hadday iyadu noqoto laga roone aanan cadhada ka soo kabanayn noqo adigu roone raaligelinta ku degdega inaad qof raaligelisaa ma ahan inaad tahay adigu midka khaldan balse waa inaad raadinayso inuu qoysku sii dhisnaado qodobka 10aad yareynta isticmaalka teknoolajiyadda inaad yarayso isticmaalka teknoolajiyadda horumarsan sida TV-ga taleefanka iyo kombiyuutarkaaga waqtiyada labadwiinu aad guriga wada joogtaan waa wax loo baahan yahay si xiriirka ku salaysan farxadda uusan isugu bedelin murugo iyo karaahiyo